kulanti wacan saaxiibayaal dhammaantiin kusoo dhawaada janalkayga Bashir Maxamuud Maxamed Bardaro fadlan subscribe like dhao share sheekooyinka warbixinada xiisaha badan ee aan halkan soo geliyo kusoo dhawaada warbixin xiiso leh oo kooban oo aan kaga hadli doono keeba ah ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ee kubadda cagta ee loo soo gaabiyo lana siiyo magaca qeexitaan ee ah God Greatest of all time. Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi ayaa ah macnayaasha madadaaliyaasha iyo macallimiinta kubadda cagta min shan jeer ayay ku guuleysteen abaalmarinta qaaliga ee FIFA Ballon d'Or waana kuwo muddo dheer soo tartamaya kuwaas oo ah kuwa ugu fiican ee dunida kubadda cagta. Shaki kuma jiro in labadan ciyaaryahan ay ahaayeen kuwii ugu saameynta badnaa ee kubadda cagta jiilkooda. Mar walba kubadda cagta ayaa leh hogaamiyaal iyo sidoo kale haldoorro kuwaas oo sabankooda u ah jiilkooda kuwii ugu fiicnaa. Ronaldo iyo Lionel Messi ayaana loo arkaa jiilkoodii kuwii ugu fiicnaa. Waxa ugu badan ee lagu murmo su'aalahan ay ka taagan yihiin ayaa ah keebaa ah kan ugu fiican labadan laacib ee Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi maadaama dhan walba ay ku tartamaan isla markaana ay ku xifaaltamaan. Keligood ma ahan taageerayaasha labada dhinac taageeray iyo kooxaha ay ciyaartooydan u kala ciyaara iyo inta badan ku dooda midka wanaagsan kan u ciyaaraya kooxdooda ahna kii ugu saameynta badnaa ee ebed. Balse waxaa jira doodo badan oo imaanaya waa kee ciyaaryahankii ugu fiicnaa ee gebi ahaan waqtiga kubadda cagta. Waxaa soo maray dunida kubadda cagta laacibiin waaweyn kuwaas oo magac iyo maamuus ka lahaa xirfadda kubadda cagta. Haddaba kee ayaa ah kii ugu fiicnaa ee kubadda cagta isla markaana ahaa haldoorkii ugu weynaa tan iyo bilowgii kubadda cagta. Jiil kasta jiil ayuu dhexlayay isla markaana u dhiibayay hoggaanka xirfadda kubadda cagta. Waxaa soo maray xidigo mucjisooyin ah kuwaas oo wacdaro ka dhigayay garoomada kubadda cagta sidoo kalena ahaa kuwo taageerayaashu aanay marnaba ku daalin hanaankooda ciyaareed iyo qaab ciyaareedkooda cajiibka ah oo ay mar walba soo bandhigaan. Haddaba kee ayaa ahaa xidigii ugu weynaa ee kubadda cagta ee la siiyay qeexitaanka God? Markii laga ambaqaado liiskan aan soo gudbin doono kuwaas oo inta badan lagu soo koobay isla markaana la aaminsan yahay inay yihiin kuwii ugu weynaa ee bilowga xirfadda kubadda cagta iyo haatanba inay ahaayeen kuwii ugu fiicnaa ebed tan iyo taariikhda kubadda cagta. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Pele, Maradona, Johan Cruyff iyo sidoo kale Ronaldinho ayaa loo arkaa xidigihii ebed ugu fiicnaa kubadda cagta taariikhdeeda soo jireenka ah ee la siiyo qeexitaanka God Greatest of all time. Waxaana ay yihiin kuwo aan shaki la gelin karin hanaankoodii xirfadahoodii dhalintoodii waalida ahayd iyo sidoo kale inay ahaayeen macnayaasha iyo madadaaliyaasha iyo macallimiinta kubadda cagta. Balse kee ayaa ah midka ku jira kaalinta koowaad, kaalinta labaad, saddexaad, afraad iyo shanaad? Waxa ugu badan ee dooda iyo muranka ay ka taagan yihiin ayaa sidee ayay boosaska ugu kala jiraan yaana ah kan ugu fiican. CR7 ayaa ah kii ugu fiicnaa ee jiritaanka kubadda cagta. Messi ayaa ahaa kii ugu fiicnaa jiritaanka kubadda cagta. Pele ayaa ahaa midkii ugu fiicnaa kubadda cagta jiritaankeeda. Maradona miyaa ahaa midkii ugu fiicnaa jiritaanka kubadda cagta? Ma Johan Cruyff ayaa ahaa jiritaanka kubadda cagta kii ugu fiicnaa? Mise Ronaldinho ayaa ahaa jiritaanka kii ugu fiicnaa kubadda cagta? Waana su'aalaha iyo muranka waxa ugu weyn oo ay ka taagan yihiin. Kuwani shaki ma leh inay ahaayeen kuwo ka mid ah kuwii ugu fiicnaa lana tegi doono hanaankooda ciyaareed iyo sidoo kale sidii masraxyada kubadda cagta ku ahaayeen. Intaas ayaan kusoo gabagabeynaya warbixintii koobnaad. Fadlan subscribe like share wararka iyo sheekooyinka xisaab badan ee halkaas soo geliyay. Tan iyo kula dambe Bashir Maxamuud Maxamed Bardaro nabadgelyo.